Ayga waa Idris Alaad Maxamed oo ku nool xirada qaxootiga Dhigaxley ee deegaanka Dhadhaab. Marka hore waxaan ka hadli rabaa telefoonka mushkiladiisa iyo faa'iidooyinkiisa. Telefoonka mushkilad fara badan ayuu keenaa. Waliba telefoonada casriga oo hadda soo baxay smartphone-ka loo yaqaan. Telefoonadaas sharci khayr baa loo adeegsan karaa. Dhanka khayrka daa adeegsan waxyaabo fara badan ay ka caawin karaan. dhanka maanta daa adeegsan waxyaabo fara badan ay ka humeyn karaan. Haddaan ka hadalno qoysaska isqaba oo dhibo u keena. Qoysaska isqaba dhibaato fara badan u keena. Waxaan kula talin lahaa inay iska dhaafaan qoysaska isqaba telefoon oo waaweynka. Sababtoo ah telefoon qada u furan Facebook waxa isticmaali Twitter isticmaali WhatsApp isticmaali email isticmaali. Qof walba wuxuu leeyahay wax kale oo dad kale oo la xiriiro. Dadkaas isla xiriiraan marka waxa laga yaabaa inay isku kalsooneen amba laba qof oo wax ka dhaxaysa amba qof inuu haas u leeyahay qof kale xiriir u leeyahay gabadhan ay u malaysa qofka xiriirkaas uu leeyahay inuu xiriir dhab u yahay xiriirkaasna laga yaabaa inuu ay xiriir oo caadi oo ama iswaraysi oo saaxiibiga laga yaabaa qoys burbur baa ka imaada waxa leeyahay telefoonkaada ii fur oo telefoonka passwordkiisa haddaad u diidana waa lagu dagaali oo haddaad diiday telefoonka passwordkiisa waxaad ku qarsanaysaa jiro saas inuu dhibaato ay ka imaataa laga yaabaa marka inay labada qof oo isqabaan haddii telefoonkaas ay ka maari waayaan labada password ay isku sheegaan ninkan passwordkiisa u sheego naagdana ninkeeda passwordka ay u sheegto ay isku aamin qabaan labadooda marka in passwordka isi la dhaho qaab kale soo dabagalo waxa keenaya labadooda shaki iska qabaan qofkan wuxuu rabaa ninkan telefoonkiisa inuu ogaado wixii ku jiro ama qofku la xiriirayo qofku xiriir la sameeyo inuu ogaado rabaa kan kalena saas amal ay buu rabaa kalsooni darra keenaysa marka labada qof oo isqaba waa inay marka hore isku kalsoonadaan haday kalsooni isla qabaan wax dhibaato ah ma dhacayaan waxa ugu baaqayaa dadka isqaba inay horta marka hore xiriirkooda ay wanaajiyaan kalsoonina ay isku qabaan gabadhana passwordkaada aad ka qarinin ninkana passwordkiisa uu ka qarinin labadooda passwordada isla ogaadaan saas dhibaato keenin badan ayaan kala socdaa dhibaato badan ayuu ku hayaa bulshada telefoon gabdhaha xaasaska lahaa waa lagu furay ilmahoodii oo dayacan bay telefoon ku jiraan saragoodii oo shaqo uga maqan bay telefoon ku jiraan samaxayday shaqadii qabsan lahayd oo dhan bay telefoon kaga mashquuleen marka bulshada caalamka dhib badan inuu ku hayaa aan la socdaa telefoonkaas kana marka maxaa keenay in gabadha ay ku mashquulshaan ninka ku mashquul ama la iskontaroolo la telefoonka iyo passwordka iyo maxaa keenay maxaa keenay wixii dadka dhanba caalamka waxa lagu mashquulay telefoon ilmihi yarka way wataan qoftii wanaagay wataa ilmihi wax dhiganay way wataan gabadhii la qabay xaaska way wadataa telefoonki dhibaato badan ayuu keenay ilmihi dugsiga loo diray ilmihi iskuulka loo diray ilmihi salaada loo diray nin walba waxaas ku mashquulsan yahay marka dhibaato badan caalamka naga soo dhex korday uu noqday telefoon iyo Facebook halka waxaan arkaa in waxaana laga joojiyo Ilaahay subhanahu wa ta'ala hal khayr qabo noo soo dejiyo tamaaga meel ray isaga bdool yare may ku noolaa xirada Dhigaxley marka oo dhab ku tirsan marka markaan ku dhimay salaamay baada saxaafada aan ku horay saaxiibkay Maxamed isan lahaa arimaha gooskadii aan ku hadlo malay dhab badan yeelay oo ka saabsan dhinaca telefoonada meela telefoonada midii hore yaraan laakiin hadii wiiga naqdeen oo meela iPhone kuwan oo gaantis la garaan naqdeen marka dhab badan yeelay kulme kala shaki mara haafada dadka ka jaru yara may ku mid ah laakiin minki lankiin hadii guriga kooyo balaamada telefoon shee milyaalo ha qaado passwordka baaro mega telefoon amar number usan ka saan argo shakiyo mana balaamay taayirka hawaaci aro hoobu kooy aro mana numberka minki oo numberka kan mi dabkaasi jar marka guriyal badan ka burburen maxaa keenay marka dabagalkaas may weelay oo shakigaasi oo hata mashquulka fara badan oo balaamayta ka mashquulaso oo telefoonka ilaahay hadii lanko balaamayto mashquul ma kasaba hawli guriga masaxayn wal badan oo linku baahnay in qabato ida telefoon la ka mashquulsanta argo may dareemay shaka oo ah ini maana in telefoonkan wal badan halaayahayo saas daraadii shakiya qaade marka madaasa may ray ini balaamaytan ba ini xiriir kala sameeyay amal shakigaasi ya kooye maadaama markii ma arfaday saasay ligu gudubo ini telefoonada mana guriga hoob la rogo lis aamno waan link mashquulna siiqa khaasatan dumarka rag naftiyo mana in lagu shaki waan ma gogol way lamada meeloodba ma isqa qabsiga telefoonkaas waxana waa fasaad ka jira mujtamaci oo dhan horta telefoonkan wuxuu leeyahay noocyo badan
nin walba wuxuu leeyahay sida uu isticmaalo أولاً وحن أقدر دار ميا أنا جا وش يا دمان والدين تدلين أولاده أولاً هو يكسته ها جرهان لما أنا ياش إسقبا إنا يهرت أولاً أي نظاميا نظام كله قلت لك جري تلفون كأو استعماله نينك خير استعماله خير باستعماله كره نينك دقيقة شرط أنا شرط بو استعماله كره نينك وقت يسوي حسابيه تطبنا بس وناكسون استعماله هذا نشقدي سي هوله سي ما أرتز هذا ناك نين تيسوج كذي نينك دوز يسوجدي سي أغاني أنا كدي عن استعمالنا تلفون كه مركن نين والب برشة الله سكون ذكر نين والبس يقابو استعمالات تلفون كه مركو حنود الدار ما لما أنا الأمان إنا تلفون كان في تنتي سيسكي العليان صفة قريها أسرة الإسلام كا اسم بربر كذا وبدنين وآد بو بربرية وايو حياة بدن با إيماني قبل ويكون مشغولي مركي لجورسة دلنيرة هرو له سي الله هذلي قبل يبي له حريري رجع يبي له حريري نينك كبتاس أصلا الشك كقاضي ودب يدبات إيك إيماني مركو حنقدر دار من الأمان قبلها مسلمات كأنا عن كل كم أيوة حنقدر دار ميا إن إلهي أوقع بصدان تلفون كاس وهي خيرنا إيك استعمال أنت بدنا أيك إلاليان ما أركتي وحي ممنوع إسك إلاليان dadka zawaajigaana ilaahay zawaajnimadooda kuwii xaqooda isu gutay ilaahay inuu ka dhiga ilaahay ka baryayna taleefanadan hadda dhibaato badan bay keeneen waayahan caruur ha ahaato dad waaweyn ha ahaato waa aad baa loogu dhiban yahay marka waa sida gabadha walaasheena sheegtay khayr allaha siiye gabadha waxa ay ducaada u sareysa maanta xirada dhagaxley dugsiga B2 iyo dugsiyada dhamma madaarista dhanba gabadha u sareysa way macalinkeena khayr allaha siiyana macalinkeena xaaskiisana waay markaasay u sheegtay way iyada laba af buu leeyahay waa seef laba af leh marka khayrka in looga faa'iideystaan aad u dardaarmayna naftayda iyo naftiina waxaan ku dardaarmayaa khayrka in lagu aad loogu dadaalo ilaahay khayrka hayna waafajiyo insha Allah markaas assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu حكين إن ويلش قبلها لما نيش إسقابا إن خلاف وثلاث قبل ومرة قار waxa keenay dayacaada jirta waa la dayacayaa reerkii baa dayacan awlaadii baa dayacan waa iyo aad ba loogu mashquulay ma jirin bariga hore dhibkan taleefanadu waxa weeye aad iyo aad ba loogu mashquulay marka dadkii waxay noqdeen dad siman oo kale marka bariga hore waxa jirtay marka anigu hadda ruux daaweyn baan ahay dhowr iyo 10 caruur aan dhalay marka ma sha Allah waxa weeye ma aqaan hadda ma noqon bariga hore taleefan saan wadaadkayga u maamulno iyo awlaadayda u maamulno baan naqaanay hadda gabaraan dhalay waxa jirta taleefanka aad ugu mashquulsan oo taleefanka si ugu mashquulsanayd kuba dhaqan weeyday reerkeeda kaga soo tagtay waayo waxa keenaya ayadii taleefankii bay waardiyeen oo maxaa soo dhacay maalin walba message-kii soo dhacay wixii soo dhacay comment ka bixi waxaas lagu mashquulaya wixiina de la isku ma keeni karo laba malaha la yiri marka saasa keenaysa dhibka waxaan rabnaa in taleefanadan laga wacyigeliyo sidan khayr Allah idin siiya loo wacyigeliyo dhalinyarada waliba dhalinyarada dadka hadda taleefan ma yaqaanaan badanaay dadkan yareer anagu aan dhalnay dadka taleefanada ku mashquulsan waana ka xunnahay aad iyo aad baan uga xunnahay marka dadka taleefanadan soo sameystay kullayba ayagu waxaan u maleeyay inay sidan hadda anaga ay noo lugoyn inay u lugoyn baan u maleeyay anaga dib nagu hayaan awlaadi waxbarashadii waxba ma bartaan hadda soo xalay waxbarashadii baa halad waxbarashada ma halaabin awlaadi bahalkan ay ku mashquulsan yihiin cunugi waxa laga yaabaa caawa dhanba ku soo jeedi subaxdii markaad kacso waxbarashada u dirtid waa daandaan hadda cunugan dhalay xaafado kale u seexan markuu xaafado kale seexdo waxa la yidhi maanta iskuulkii ma imaan uu uba hurdaysan waa tabcaanba isagoo wajiga bararsan yahay marka dhibkaas galis waxbarashadii buu naga ciyaaray guryihii buu ku ciyaaray deganaanshahoodii awlaadi lagama warqabo gabadhisay maanta message-ka soo comment ka bixi duhurkii baa lagu aadimi marka ma ilmihii bay qada u karin ma ninkeedii bay wax u qaban waxba ma qaban karto marka qalbiga saas dadka uga ciyaaray Ilaahay subhanahu wa ta'ala waxaan ka baryaa kuwa khayrka uga faa'iideysta Ilaahay inuu naga dhigo ha marka idinkana Allah idin barakeeyo insha Allah assalamu alaykum dadku xaasaska aad bay dib u dhacay u keeneen qoysas badan baa ku burburay waxa jirta gabdhaha reerahooda dhaqan laayihiin wiilasha ma aha waa gabdhaha reerahooda bay dhaqan laayihiin gabadh marka hore gurigooda mashquul ku ahayd ba mashquulka ay ku mashquulsanay taleefanka waxay la tagtay reerkii ninku wuxuu rabaa markuu imaan hayo haduu shaqo jira in loo diyaar garoobo ilmihii waxa rabaa in loo diyaar garoobo hawsha reerka dhan waxa rabtaa in loo diyaar garoobo gabdhihii wax xil ah iyo wax hagaajin ah iyo wax wanaag oo ay hayaan midna ma laha marka saasa keentay inuu taleefanku lagu burburo maanta dhan lagu mashquul u yahay taleefanka caruurta lagama warqabo odayga lagama warqabo hawsha reerka lagama warqabo marti warkeed badaa halka waxaan u arkaa taleefanadan inay nalaga qabto nalaga joojiyo hadii nalaga joojin karo hadii la joojin waayna dib u dhac nugu hayaa dhibaato weyn baa nugu hayaa oo saan bay noo sii saameyn sida wanaagsan loo isticmaalo aad ma santa ma sha Allah telefoonkan aad wax iga wadiisay walaal waxa weeye horta waa aalad cusub oo adduunka ku cusub oo laba afla ah
ninkii u adeegsanaya muxuu ahaayey xagga diinta iyo muxuu ahaayey alla ka cabsiga wanaagga iyo xadiiska rasuulka ninkuu adeegsanayana waxaa weeye guul iyo barwaaqo iyo badhbash buu ku gaadhi dhanka kale waxaa weeye wax xun baa ka buuxa oo bidhaanta dadkii aad arkayso rag iyo dumarba iyo wax maartay dhagaha ku soo dhacayo iyadana aan fiicneen oo xun oo heesi iyo mankor iyo muusik iyo wax xun marka qofka islaamka waxa u fiican in uu muxuu ahaayey u adeegsado dhanka fiican ee wanaagsan alla ka cabsiga waliba qofka dumarka waxa weeye waa qof maartay wixii labada indhood hortooda yaala durbaba lagu bedeli karo waxa weeye qofkii hadduu caamo yahay oo diintiisa uu yaani aad ugu dhaganayn waa la bedeli karaa maxaa lagu bedeli karaa waxyaabahan macaanka ee la macaaneeyay xagna diinta aan asal ku lahayn xun aad iyo aad bay maartay qofkaas ugu halaabisaa oo akhradii adduunkeedii u gafaysaa dhanka kale xagga maartay burburka haweenka iyo ragga qayb libaax buu ka qaadan laba qof oo ajnabi kala ah oo arag kala fog jooga yaa muxuu ahaayey isla soo hadlahay labada qof haddii adduun iyo aakhiradooda ay muxuu ahaayey dan ka lahayn waxaa laga yaabaa wax aan wanaagsanayn oo maartay qoys burbur ah inay sameeyaan baa laga yaabaa marka waxa leedahay halis buu ku yahay waliba qofka maartay caamada oo maartay ama sabiga oo yar ama maartay nisada oo muxuu ahaayey aan aad iskugu kalsoonayn aad buu burbur iyo fidmo ugu yahay maxaad fariin u diri lahaa dadka isqaba waxaan fariin u diri lahaa marka oo horeyso qof iyo tawxiidka ku dhawaaqa islaamka ama rijaal ahow ama nisa ahow waxaa la rabaa inaad allana ka cabsato ninkaaga iyo reerkaagana aad u turto iyo caruurtaada iyo diinta islaamka intaba gabadha islaamka inay u turto oo muxuu ahaayey waxyaabaha wanaagsan maartay fiican inay u adeegsato in la isku kalsoonaado oo reerka burburkiisi haddii reerku gabadhu mar hadday ka kafto mar labaad ka kafto marka saddexaad khatar bay ku sugan tahay ninkana kadaalika sidoo kale ilmihiina dhaxda ka baxayaan oo halaabahayaan oo waxay noqonayaan joqor iyo wax ka sixun bay noqonayaan marka waxaan ku waanin lahaa gabdhaha islaamka ee sharafta leh ee waliba Soomaaliyeed ee muxuu ahaayay dhaqanka wanaagsan leh inay toosnaadaan ninkoodana ka dambeeyaan diinta islaamkana ay gacanta ku haystaan